ruushka ayaa taageeraya isla markaasina hub siinaya kooxda Taliban waxaa sidaasi warbaahinta u sheegay madaxa ciidamada Mareykanka ee ku sugan Afghanistan waxaana uu yiri John Nicholson in hubka ruushka laga soo galiyay dhanka xuduudda Kazakhstan balse muu sheegin tirada iyo inta uu dhan yahay hubkaasi dawladda ruushka ayaa hore u beenisay eedeymaha Mareykanka iyagoo sheegay in aan arintaasi wax cadeyna loo haynin hase yeeshee eedeyntani cusub ayaa ku soo beegmaysa xilli xasaasi ah oo xiriirka ruushka iyo NATO aan wanaagsanayn Britain iyo ruushka ayaa goradda isku daray kadib markii waddanka Ingiriisku uu ku eedeeyay ruushka inay ka dambeeyeen sumayntii nin hore uga tirsanaa sirdoonka ruushka iyo gabadhiisa dhanka kale guddiga sirdoonka u qaabilsan aqalka Koongareeska ee Mareykanka ayaa daabacay warbixin ka hadlaysa faragelinta la sheegay in ruushku uu ku sameeyay doorashadii Mareykanka ee 2016 balse saraakiil sarsare oo ka tirsan booliska iyo militariga Afghanistan ayaa waxay sheegeen in waxyaabaha ruushku uu siiyay Taliban ay ka mid yihiin qalabka xilliga habeenkii wax lagu arko hubka culus iyo midka heerka dhexe ee darandooriga u dhaca iyo hubka fudud